السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن ونكسن داودي الأروري سوبان أيان هالكن إذن كالينا هاي مال والبؤد جوكتان با قضبضا أدوركنا أروري مكو مغلي دونتانا وحا كميدا جنرالكا هولغالكا قد وقويغا دالكا إيتوبيا إكا سعودا دولة فدرالكا إيتوبيا أيا مرء حالي ورباهن تكولها اللي مقالة أدس أبابا يا وحاو شيغي وحتي BLF أو لغا بقا إن أنا جيرين وقتيغان وإن أهايين كوي دقالكا وين لقالي TPLF أود لي ما أنت حاسا يشي TPLF لغا خلخلو أما لغا والولا إن أنا دالكا إيتوبيا قدهيسا كوجرين sidoo kale generalka ayaa waxa uu sheegay inay ciidamadii ay dawladda federaalka ku sheegtay in ay Suudaan ka soo galeen gabi ahaanba wax dhumay iyo wax dhaaraacay laga dhigay sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed mar uu tababar u soo xiray kumanaan kun oo ciidan maalinimadii shalay dawladka magaalada Dirdaba ayaa waxa uu sheegay hadda laga bilaabo in si fiican loo siixani doono ciidamadana ay yihiin kuwii TPLF dadka iyo dalkaba ka saari lahaa sidoo kale maalinimadii shalay ahayd dawladda Suudaan ayaa waxay u jawaabtay dalka Itoobiya waxayna sheegtay waxay dawladdu ka cabanayso inuu ahayn Suudaan uu yahay arin gudaha dalkeeda ka taagan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 5 bisha 9 2022 hadaynu u guda galo wararkeeni oo faahfaahsan janaraalka lagu magacaabo Baja Debele oo ah taliyaha guud ee howlgalka waqooyiga dalka Itoobiya oo ah taliyaha caana waqtigii TPLF weerarka lagu qaadayna ahaa ninkii loo xil saaray hoggaanka ciidanka ama howlgaliyaha guud ee ciidanka Itoobiya qaybta waqooyiga ayaa mar uu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Addis Ababa isagoo barihii dambe ku sugan galbeedka dalka Itoobiya ee dagaaladu halakeeyeen generalka ayaa waxa uu sheegay in ayna jirin Itoobiya saacadan ay TPLF qabsan karto ama TPLF awood oo laga khalkhalo jaranka ayaa mar ay warbaahintu weydiisay ku sheegtay in ay TPLF hadda qarka u saarantay inay gebi ahaanba wadanka ay gacanteeda geliso maxaa ka jira jaranka ayaa waxa uu sheegay xog kasta ana inay xog ogaalka guud ee wax la weydiin kara dalka Itoobiya waaniga jaranka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay TPLF 3 jaha ka dagaalamayeen mid hortaayada gebi ahaanba inay cagta mariyeen jaranka waxa uu sheegay TPLF maanta awood leh oo la dagaalami karta dalweynaha Itoobiya ama Itoobiya kala muquulin karta inay jirin ninkii weerarka ku qaaday TPLF awood leh oo East Africa oo dhan maamulkeedu uu ka howlgalo anigu ahaa magaalada Maqala ninka ugu horeeyay janaraalka anigu ahaa ee gacanta ku dhigay ee xafiisyadoodii oo dhan iyo meelaha wax ku maamuli jireen oo lacagta soo mariyay anigu ahaa TPLF maanta laga baqan ma jirto TPLF meel xukuntana male waqti kasto loo baahdana TPLF xafiisyadoodii horaan ku laaban karaa buu jananku yiri jananka mar laga weydiiyay ciidamada ka soo weerartay dhanka Suudaan ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamo yar oo badnayn ahaayeen kabiyaana cagta mariyeen intooda badnaan ay qabteen wixii kalena ay carareen oo meel ay galeen bilawaayay jananku waxa uu sheegay maanta laga bilaabo inay dalka Itoobiya si fiican u seexani doonaan TPLF-na gebi ahaanba cagta mariyeen jarankan oo ahaa jaran in badan aan beenta lagu baran oo warbaahinta dalka Itoobiya la hadli jiray dagaaladu meesha ay marayaan ayaa hadalkiisa laga dheehanayaa in uuna jaranka ayaa mar su'aalo laga weydiiyay goobaha dagaaladu ka socdaan sida magaalada DC ayaa waxa uu sheegay inuu arintaasi ka gaabsanayo jaranka ayaa wuxuu yiri dib baa iniga soo gudbin doonaa meelaha ay joogaan TPLF hase yeeshee saacadan TPLF laga boqo aanu meel kuma sidoo kale kooxda TPLF ka dagaalamaysa galbeedka dalka Itoobiya waa gobolka Axmarada sidoo kale TPLF ka dagaalamaysa galbeedka dalka Itoobiya gobolka Axmarada ayaa waxa ay sheegaysaa inay gebi ahaanba cagta marisay ciidamadii federaalka ee ku sugnaa magaalada duleedka DC kooxda TPLF ayaa waxa ay sheegtay gebi ahaanba cagta inay marisay ciidamadii ku sugnaa deegaanada ku hareeraysan magaalada DC ee mashaqadu ka taagan tahay jaran TPLF ka socda oo hadda ciidamada hogaaminaya dagaalka ka wada duleedka magaalada DC ayaa waxa uu sheegay inay 48 saac u qabteen ciidamada ku sugan magaalada DC ee difaaca qaybta hore kaga jira
Jananka ayaa waxa uu yiri guud ahaanba iyo gabi ahaanba duleedka magaalada waan soo xoreynay haddana waxaan u soconaa gudaha magaalada inaan howlgal ka fulino waxaan u sheegaynaa ciidamada maleeshiyaadka axmaarada iyo ciidamada beeraleyda iyo ciidamada federaalkuba inay 48 saacadood uga baxaan magaalada si ayna shacabka ku nool magaalada ayna waxyeello uga soo gaadhin Jananka ayaa waxa uu yiri magaaladan qadiimi way magaalo lagu dhex dagaalami kara ma waxaan u sheegaynaa camaasirtu inay magaalada iskaga baxaan si nabada wada ay ka baxaan aanu u furayno hase yeeshee wuxuu uga baaqay shacabka ku sugan magaalada inay isdejiyaan ganacsigooda wataan hawshooda wataan in ayna ahayn arin ama la qabsanaya ama iyaga wax la yeelan hase yeeshee ay tahay in ayaga wax loo tarayo wax loo sido Jananka ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadu sida uga dhaqsaha badan uga baxaan magaalada haday ka bixi waayaan inay takaraacda ka yaabi doonaan gacantana ay ku dhigi doonaan sharcigana ay soo hor istaajini doonaan sidoo kale bartamiye caawa magaalada waxa lagu dhaxdaadiyay waraaqo digniin ah oo ku socota ciidamada federaalka ayaa waxay sheegeen inay magaaladan difaaci doonaan siina difaaci doonaan cid kasta oo ku weerartan ay kula dhex dagaalami doonaan hase yeeshee kooxda TPLF waraaqa digniin ayaa u daadisay oo ileen shacabka loo turo anaga magaalada wax naga hor istaagi kara male gabi ahaana magaalada kabaabigeeda ku sugan cid dagaal hadda aan la galaynin wixii hadda ka dambeeyna dagaalku gudaha magaalada unbu noqonaya kooxda TPLF oo maalinimadii shalay ahayd dagaal xoogan ka wajahaysay ciidamada huwanta ay dawladda federaalka hogaaminayso ayaa hadalkeeda hadda waxa uu dhigaysaa inuu hadda magaalada bas ay soo hadhay maanta ilaa berrina la filayo magaalada gudaheeda in TPLF lagu dhaxarki doono shacabka Itoobiya ee TPLF kala maqnaayeen inay sarki doonaan magaaladan oo ah magaalo qadiimi ah ama magaalada saddexaad ee ugu weyn gobolka Axmarada ayaa dagaal culus wajahaysa sidoo kale waxa la soo sheegay magaaladan gabi ahaan shacabku inay faaruujiyeen gobolka Axmarada haday magaaladaasi gacantooda ka baxdo waxay u tahay jab weyn oo la ka soo gaaray dhanka arrimaha dagaalada ee ka socda galbeedka dalka Itoobiya sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa maalinimadii shalay 10,000 oo askari tababar u soo xidhay asaga oo sheegay maanta laga bilaabo shacabka Itoobiya inay nabad ku seexanayaan kuna soo toosi doonaan ay 10,000 wiilayn rag ayagu mutadawacnimo sukane oo dagaalka daacadka inay TPLF na gabi ahaanba qudha ka jaraan diyaaruha ra'iisul wasaaraha ayaa mar uu hadlay waxa uu ku sheegay maanta laga bilaabo shacabka Itoobiya inaad si fiican u seexataan niyadana gashataan TPLF oo dama magaceeda inaan la maqlaynin tan iyo kulanti dambo wanaagsan waxaan idin leenahay salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh